Gudomiyaha xisbiga Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qaybgalay xaflad ballaaran oo ay cud u taageero ugu muujinayaan beesha waqooyiga magaalada Burco xisbiga muxaafidka Kulmiye. xafladan oo ka qabsoontay hotel Kaafi ee magaalada Burco ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadleen qaar ka mid ah taageerayaasha xafladan isoo abaabulay madaxa dhaqameed haween iyo dhalinyaro waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta halkan iskuulku waxa weeyaan inaynu muujino dareenkeena taageeranimo ee xisbiga muxaafidka Kulmiye iyo mujaahid Muuse Biixi Cabdi. waxaan halkan idinka sheegayaa inaanu nahay mujaahid Muuse Biixi Cabdi haweenta sudeero inaanu nahay baan halkan idinka sheegaynaa una rabaynaysa jecela doonaysa ee rabta isagaan u cabaynaynaa marka hore waa shir Kulmiye waxaynu leenahay oo isku raacsanahay inaynu ninkaan maanta soo saaro oo doorano inaga iyo Kulmiye iyo ciddii kale Kulmiye ayba soo saarto dhalinyarada awal maray oo haween iyo rag kale oo maanta xafladda soo abaabulay xafladdan sharafta badan leh soo abaabushay iyagu gartay taageerada ay u hayaan xisbigooda Kulmiye inay muujiyaan garabka haweenka oo lafdhabarkaaga ku daadanayno. waxaan sheegayaa aniga oo ka wakiila salaadiinta iyo cuqaasha madax dhaqameedka reerka waxaan sheegayaa reerku waa Kulmiye. qodobka koowaad waxa weeye taageero ay u muujisay xisbiga Kulmiye musharaxa madaxweyne mujaahid Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale iyana waxa halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo barasaabka gobolka Tagerayo waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaynu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga Kulmiye waxaana idin sheegay maanta dadkan mugga iyo miisaanka leh ee meesha isugu yimid soo dhaweyntoodu qiimaha leh waxay ka soo jeedaan waqooyiga magaalada Burco. waxay halkan u yimaadeen oo nagu casubeen oo ugu nimi oo iyagu isku maamuleen inay tusaan in laga been sheegayo waxaanaan runtii leeyahay hal laga waantoobo laba qof inta la kaxaysto in la yidhaahdo waa beesha reereer waaryaan la iska been abuurin baan leeyahay. gabagabadiina waxaa xafladaasi ka hadlay gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga muxaafidka Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. murana kama joogo deegaan waliba cidu taageeraya adduunkuna muuqan Maraykanka dimuqraadiyadda Ingiriiska ugu horeeyo xisbiyada gobolada way kala yaqaanaan kuwa boqolkiiba laga taageerayo kuwa boqolkiiba kontara kuwa diidan ee isku hawreyn waa la kala yaqaanaa degmooyinka iyo gobolada calankaa dooga iyaguna gobolada aan ciido kula tartamayn ee lagu soo lugayo waxaa ka mid ah gobolka Saaxil waqooyiga Burco. geesta kale la gudoomiyaha xisbiga muxaafidka Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu kormeerin dheendheyn ku soo maray garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco oo in dhaweydba ka socotay dib u habayn iyo dib u dhis isagoo ay halkaasi ugu xog warameen gudoomiyaha gudida dib u dhiska garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco. kan wuxuu noqon doonaa 5 kilomitir sida hay'adda ICAO maaragtay maxaa aviationka caalamiga ka shaqeysa master plan bay sameysay wuxuu noqon doonaa 5 kilomitir kilomitirka koowaad wuxuu noqon doonaa bridge buu noqon doonaa ka kale dhinaca kalena sida 3 kilomitir iyo 200 ma waxay noqon doontaa maaragtay maxaa runway ay noqon doontaa. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga muxaafidka Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana ka mid ah hadaladiisii waxyaalaha cajiibka waxa weeye aqoon la'aanteena haysa dadka adduunyadu meeshii khatar waa laga durkaa garoonka diyaarado dadkan ku soo cararaya ka guura leeyahay in loo talinayaa dhulka ma rabo garoonkan ninka ag degan gurigiisa diyaaradaha buuxoodu gabadha uurka leh waa u khatar. waa Cabdi Axmed Yuusuf sababtii fi magaalada Burco.